بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلسلة دي مانديل كوربا كحرا أنيقو أحمد نور محمد عبد الله أيانا إنيدا دهينا إيه صومالي أردن بينا وهذا الشاه ولا ليالو ولا مارمان إن حقيقة يدبت faraha lagu dhigo maskaxdana laga shaqaysiiyo arrintaasu hadda si toos ah waxay ugu socotaa reer isxaaq. horay ayaan idinku caddaynay haddii huf iyo halan jirin reer isxaaq ay noqonayaan muuse biixi wax uga jira ma jiran. cid kasta oo go'aan gaartana mar walbaba waa ka baabi'iyaa, waa ka tirtiraa. habar yoonis baan ogayn oo laga soo saaray buurtii ay ku jireen. habar jeclo oo haad geed waayey laga dhigay oo ayagu la deggan, la nool, la daaqaya reer SSC, reer khaatumo sida ay ula daaqayaan habar yoonis. waxaa idin sheega marka muuse caqliga uu cayaarayo waxa weeye xiidmaha, caloosha, sambabada, wadnaha, dhammaan uur ku jirta dhan ee qofkii quud cunaya caloosha gudaheeda wixii aadi lahaa oo dhan ayuu xaalufinayaa. wax allaale wixii maskab iyo aayatiin iyo naruuro iyo nolol kulli wuu xaraashayaa. berbera, burca, hargeysa, meel kastaba ha ahaato. si arrintaasu si fiican ugu hirgashana qorshaha uu degsaday, nidaamka uu degsaday, arrinta uu istusay, lana baraariyey, lala tiiriyeyna, laga raarido lala toostoosiyeyna waa colaad meel kasta ah ka beer. hadday noqoto dhanka ceeri gaabo, hadday noqoto dhanka buuhoodle iyo qorulugud, hadday noqoto oog iyo agagaaraheeda, war meel walbaba si dadku asaga ay uga sii jeestaan markuu dhulka dhacayo, markuu boosaska kala gadanayo, waa arrin laysi soo dhaadhacsiiyey. waxaan hubaa shaki igama jiro, ma ay garan, ma ay fahmin. ilaahay baana dareenka bixiya. horta taasi muuse markuu xididada idiin siibo adduunka meeshuu rabo ayuu ka gelayaa, meel kastaba ha ahaatee. buunta taas weeye macnaheeda. waa colaadan faraha badatay
waxa ay tahay qodobka labaad waxaan sheegayaa asaga oo aan ogahay inuu niyaddiisa aysan tahay waagii uu imaanayay waqooyiga nin ka yimid laakiin markii hore taasi ay ahayd hase yeeshee dalaalka dibadda ka yimid boqor buur madow oo dadkii reer koonfureedka ahaa ee laga soo tarxiilay laga soo eriyey magaalada laascaanood oo maamulka muuse biixi uu ka soo saaray dalka ka daba tegey asaga oo xaalmarin baydhabo ugu geeyey hadal baa ka soo fakaday oo wuxuu yidhi annagu laba dowladood baanu leenahay waa dowladna waa al-shabaab dowladna waa midda muuse biixi gacanta ku hayo isla markaa waa iscelin waayeen madaxweynena waa hadlay gabar golaha wasiirada ku jirtaana way hadashay war la qabaana xiise ma lahoo cid kasta oo madax ka noqonaysa al-shabaab nimanka wadaa iyaga weeye kharash bay leeyihiin barnaamij baa degsan nidaamkaa degsan muuse biixina waa isagii yidhi iyada oo aan nala aqoonsan xamar ma degaayo gabarna waa iyadii tidhi baarlamaanka nimanka noogu jira howlo badanna waa qabtaan lacag iyo adduunna gacanta idinkaga dhigaan burca berbera hargeysana guryay ka dhistaan hawl adagna waa noo hayaan waxa weeye isla markaasna su'aal iswarsada isgarta fahma waxaan la hadlayaa waxgaradka iyo culimaaudiinka magaalada muqdisho jooga koonfur galbeed oo dhan jooga gobollada dhexe oo dhan jooga bal aad u fekere qof yidhi anigu kuma rabo waa kaa go'ay waa kaa tegey ma doonayo inaan kula joogo haddana inta kuu yimid baarlamaanka ku jiraya ku dhaartay ama mid sare ha ahaado ama baarlamaanka hoose ha ahaado isla markaasna annagoo arkayna maraakiib laga soo dejiyey yeman dadkii maatada ahaa carruurtii hooyooyinkii qaarkood uur lahaayeen qaarkood umulo ahaayeen qaarkoodna ilmo yar yara gacanta ay ku hayeen oo dhibaato iyo bayhoof uga soo baxay colaaddii ka taagnayd yemen oo ay yidhaahdeen amxaaradoy soo dega carabtoy soo dega qolo kastoo kaley soo dega soomaaliyaysa soo degin waxa weeye mar haddii ay yidhaahdeen idinkama tirsanin walaalayaal anigu marna weligay ma ku talinayo nin ha la dilo nin waxa la yeelo afkayga ma aha diinta islaamkuna ima farayso laakiin waxa weeye qofku weelku wax kuugu liso hadduusan catirayn ee uusan wanaagsanayn oo inuu aad iyo aad heer u leeyahay ama uu waa hore gorof mid ah uu noqday magaca soomaaligu waa macnawi meeshan waxaa la rabaa arrintu inay noqoto arrin dareen leh arrin la arkaayo arrin daacad ah arrin munaafaqayn ah in ay ka fogtaa la rabaa been iyo khayaano iyo laalaab waayo ummadda soomaaliyeed annaga waa isugu kaaya mid waa wada jecelnahay rag iyo dumarba ma doonayno khayaano
ma doonayna laalaab digtoonaadan in idhi marka go'aankaad ka gaaraysaan idinka weeye ama ha is caddeeyeen muuse biixi iyo waxa la jira oo dhan soomaalinimaan rabnaayey soomaalinimaan rabnaayey soomaalinimaan rabnaayey ha dheheen haddii ay oran waayaan ummadda soomaaliyeed waa ummad islaana marka ay islaan tahayna inay raacdo kutubka quraanka waa waajib haddii kale naclatullah cala alkaadibiin ayay arrintu soo istaagaysaa nacaladii rabbi baa ku taalla beenaalayaalka nin kasta oo soomaaliya oo la dilo waa awood iga baaba'aysa waa awood iga tegaysa waa walaalkayo garabkiisii u baxday koonfur wax badan baa dhibaata ku dhacday gaar ahaan magaalada muqdisho wax badan baa ummadda shacabka dadka maatada la baabi'iyey waryaaya xisaabtamaanan iri hal la xisaabtamo si fiican ha loo xisaabtamo go'aanna ka gaara ha is caddeeyeen haddaysa is caddaynaynin waa horaan sheegay aniga ma dhoweyn maalintay ku dhawaaqeen waa go'onay ay yidhaahdeen war annagu ma go'aynaa niriye soomaali baan nahaye joojiye dhibaatada markaa niri ninna lama khasbi karo warsageli samaroon ciise dhulbahante iyo dadka kale oo dhan in nin walba meeshuu rabuu aadayaa intaasoo dhanna waxay aadaysaa midnimada soomaaliyeed oo ay doonayaan waxaan la isugu soo gabanayo iyo hiraab iyo fatuud iyo qiiqiiq iyo waa khayaano waa laalaab taariikhdu cayaar maahan taariikhda waa la bartaa labadii ugu horreysay oo wiil oo aadan dhibaatadii ka soo bilaabatay yaa weligeed soconaysa weligeed bay saa u soconaysaa wax joogsanaya ma laha hase yeeshee dareenka ilaah noo yeelay waxaa ilaah yidhi ummadu inay iyadu isbeddesho maahane anigu ma beddeluu yidhi waxa weeye marka in la isbeddelo oo wax la garto oo runta la isu sheego war midnimada soomaalida ma rabtaan haa ma rabno naga taga wakaa hadalkii wakaa warkii wakaa go'aankii dadka yaan la baabi'in garta wax oo wax fahma al-shabaabna waa idiin sheegaye horay baan u sheegay waxa weeye nin walbaba dadka uga jira waa u yaqaanaa markay arrinta reer koonfureed ay noqoto waa anigii in idhi colka waraf ma lagu dayey war bal iswaaniya oo wax isu sheega oo dad ha loo diro oo ha la toosiyo oo meel gaar ah ha la geeyo ha la dhaqan celiyo waxaan 5 daqiiqaba waa la abuurayaa waxyaabahaasna yaa furo u ama taqaanaan waa hay-adaha lacagta bixiya ayaa lacagta loo soo marsiiyaa hay-adaha lacagta bixiya ayaa lacagta loo soo marsiiyaa arrintaanu ma joogsanayso nin walbana waxaa la leeyahay oo ganacsata ah ilaahu yaanyo qof gadaayo u ahaadaa waxa weeye lacagtaas dhiib haddaadan dhiibinna naftaa lagaa jarayaa dadka cabsi baa dishay marka tashadaa ina idhi tashadaa magaalada muqdisho dadka joogaahi ha baraarugeen ha kaceen culimada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiintu ha kaceen wax ha dareemeen arrimo waaweyn baa jira jiirkiisa la hayste jidinka kaba qoslaa la yidhi mar haddii dadkii deganaa caasimadii dhammayd ee soomaaliyeed dhibaato iyo wareer lagu wado salfadhi bay noo diidayaan nolol bay noo diidayaan
magac iyo sharaf bay noo diidayaan qarannimada ummadda Soomaaliyeed bay baabi'inayaan tooso oo baraaruga runta la isu sheego qodobka saddexaad madaxweynaha xasan sheekh maxamuud saan horeba u sheegay yaan lagu sii jeedin xukunkan si kastaba ku imow ilaahay hadduusa kuu garan ma hesheen waa qadar rabbaaniya ilaahay baa saa u qadaray toosi dhanka toosan u raac marka waa lagugula xisaabtamayaa kulama rabno ninka caafimaadka qaba gabadha caafimaadka qabta ee Soomaaliyeed ee wax kala garanaysa qof walba wuxuu rabaa madaxweyne qiimo iyo qaayo iyo darajo leh adiga iska bilow sharafkaaga inaad ilaaliso ku xiji abgaal cusmaan oo dhan magacooda iyo haybadooda kor inaad u qaaddo Soomaaliya inaad kor u qaaddo isku xirkeeda iyo midnimadeeda iyo walaalnimadeeda iyo adduunka caalamka oo wixii Soomaali u daranna aad ka dheeraynayso wixii Soomaali nasteex u ahaana aad u dhowaanayso horay ayaanu kuugu sheegnay haddeerna waa kuugu soo celinaynaa madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma leh dalka adag ka madaxweyne ah nin mutacallimana waa tahay cilmigu waa inuu kaa soo baxaa waa inuu kaa tagaa fallaaryihiisu waa inay kaa tagaan waa in qof walbaba maskaxdiisa iyo wadnihiisa iyo dhammaan dareemayaalkiisa oo dhan aad hanataa psychologically philosophically anthropologically metaphysically whatsoever waa inaad ku hanataa aqoon waa inaad ku hanataa dadka aad ku qabataa Ismaaciil Cumar Geelle markuu biladda maalintaad xilka heshay biladda uu ku siinayay adeer khayaana ku jirta laalaab baa ku jira biladda midda ilaahay baa la raadsanaa biladda ilaahayna maxay ku dhex jirtaa waxaa weeye waa qowlkaaga iyo ficilkaaga waayo waa camalkaa ilaahay hadhow xisaabinayaa qowlkaad sheegtana run ha noqdo ficilkaad waxaysana mas-uuliyaddaada ummadda aad u qaaday min maqrib ilaa mashriq qorax ka soo bax iyo qorax u dhac min raas kabooni ilaa raas xafuun adigaa madaxweyne ka ah waxaa weeye kor isu qaad shanta Soomaaliyuu ka mid yahay muuse ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle shantuu ka mid yahay hoostaada ha yimaadaan caasimaddii waa Muqdisho hoostaada ha yimaado amarna adiga waa inuu kaa qaataa arrintu saa waa inuu waxaystaa laakiin ma aha ninkan miriray oo tigreega ku dheganaa maaragtaa haysta oo ku xiran in allaale inta Soomaaliya cadow ah sida imaaraadka iyo wixii la halmaala balaayo oo dhan uu gacanta ku haysto waxaan ku leeyahay ka digtoonow magaalada xamarna awal bay dhibaatooyin badan ay soo martay tigreega iyo balaayada iyo cadowgu ay soo marsiiyeen ka dheeree wax walbaba kor u qaad waa anigii ku yidhi maxamed cabdullaahi farmaajo in allaale intuu eriyey adigana ha soo dhowaysanaan ku yidhi Soomaalidu maxay tiraahdaa tala walaaldiida turuturo ma huro ninka kuu nasteexa iyo gabadha kuu nasteexa dadka wax fiican kuu sheegaya isku ilaali taladooda qaado ra'yigooda qaado waxaan rajaynayaa marka
soomaali oo dhanna wanaag caalamka oo dhanna nin walba wuxuu kuu galo ula gal qodobka ugu dambeeya waxaan aad iyo aad aan u sheegayaa is-aruurinta garaadada iyo isimada iyo boqorka reer Puntland kulli iyo kuwa SSC reer Khaatumo iyo dadka mas'uuliyadda hadda wada haya aad iyo aad fikradda u dheereeya aad iyo aad talooyinka meel u dhiga dhacdo walbaba waxa ay leedahay waxyaabo lagu xisaabo waari mayside war ha ka haraa la yiri khayaarooyinka iyo laalaabka iyo mardadagaamka iyo rafaadka iyo isdabayaaca iyo wax walbaba maala caqligiina maala wax garta oo fahma dhuuxa nin walba ninka kale inta uu u dhow yahay nin walba ninka kale inta uu u dhow yahay waa horaan idhaha isku xirmeen qola aan Soomaali aan dhihin hebelow hebel ku xiro hebelow hebel ku xiro hebelow hebel ku xiro hebel way ahaantu salkay ka u kataabaa la yiri qarannimadu waa dadka oo dhan oo is haysta oo isla wanaagsan oo isku niyad ah dadka khasab waxba kuma qabtaan dadku niyad iyo jacayl iyo muxubbo iyo ehelnimo iyo walaalnimo sidaa weeye Soomaaliduna maxay tiraahdaa higla iyo qalaanqal iska hoos baxay hoos lagama waayo marka dhammaan isimada iyo waxgaradka reer Puntland iyo reer SSC kulligiin si xigmad iyo dadnimo leh meel wax u dhigta asalkana haynii ahaato dhaqanka asal ha ahaado go'aanada macmacaan oo dhaqanku ay gaarayaan boqorada iyo isimada iyo garaadada mar walbaba tixgelin ballaaran ha la siiyo boodboodkan iyo siyaasaddan iyo khayaanadan iyo waxaan la maleegayo iyo lacagta la isisiinayo beenbeenta iyo waa waxaas waxa qarannimada dila waa waxa dila isku xirka dadka waa waxa qaada iimaanka qofka ilaahay baa iimaanka wanaajiye qofka iimaankiisa lacagta iyo balaayadaas iyo khayaanadaas iyo waxaas marka waxaan leeyahay baraaruga hal baraarugo sharaf iyo milge wanaagsan hal sameeyo dhammaan Soomaaliya oo dhanna dareenkaas ha loo lahaado laakiin marka hore idinku isnadiifiya ninkii tiisaba daryeela ayaa tu kale ku dara reer harti oo dhan ha is aruuriyeen ha is nadaamiyeen ha is habeeyeen yaan marnaba sibraarka biyaha ku jira qodaxi dhex gelin asagoo tiftifqayaan la arkin taladan la rugin waa lagu rafaadaa arrinta ciyaar ma aha waxa hadalladaas aan toos aan ugu dhufanayaa siyaasiyiinta Puntland oo marar badan iyagoo wada hadlaya garowna dhex jooga wada sheekaysanayo wada waxaynaya wada qaylqaylinaya miirsada sida aan u sheegayo u xisaabtaba ilaahay baana wax toosiye ilaahay hayni toosiyo fikra meesha waxa la laynaya waxa la baabiinaya waxa la halaynaya waa qiimaha waaqaayaha waa jiritaanka ciyaar ma aha iyo dhulka ilaaliya leena yiri marka aayara wax walbaba iimaansada dega xasila ilaahay wax khayr qaba hayna siiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanna Allah toosiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.